daawada haddii aad tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furato gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee meel weliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso waqti ka mid ah waqtiyadii adkaa ayaa la xiray oo xabsiga loo taxaabay oday waayeel ah waxaana lagu xukumay in baahi lagu dilo oo aan wax cunto ah la siinin ilaa iyo inta uu ka dhimanayo waxaa loo diiday oo laga mamnuucay in ay dadka soo booqdaan marka laga reebo gabadhiisa oo maalin kasta u imaan jirtay waxaana gabadha lagu samayn jiray baaritaan aad u adag waxaana loo diidi jiray in ay u keento cunto cabitaan iyo wax kasta oo dhuunta la mariyo waxayna fiirsan jirtay naxariis darrada loo cadaabo aabbaheed iyo sida qaabka daran ee ay noloshiisu ku baaba'ayso baahida daran ee haysa haraadka dhuunta jaray iyo saxariirta ay nafta uga socoto gabadhii ayaa samaysay ficil gelgelay dhammaan dadyooga ku nool caalamka ama kaagna ku riday waxay samaysay ficil uuna ku dhiiran karin qof kale inuu sameeyo waxay nuujisay oo naaskeeda siisay aabbaheed sidaas ayayna samayn jirtay mar kasta oo ay soo booqato aabbaheed maalintii dambe sidii caadada u ahayd iyadoo aabbaheed nuujinayso ayaa waxaa arkay askari ka tirsanaa ilaaladii xabsiga waxayna wadnaqabad ku noqotay ciidankii xabsiga iyo maxkamaddii xukunka ku riday sidaa darteed iyagoo sharfaya jacaylka ay u qabto aabbaheed iyo sida daacadnimada ku jirta oo ay ugu adeegayso waalidkeeda ayay go'aansadeen in cafis loo fidiyo aabbihii lagu xukumay dilka waxaana la siiyey xurnimo toos ah waa taa sababta uu ilaahay gabdhaha u siiyey naxariis iyo daacadnimo dheeraad ah oo ku aadan dhanka barbaarinta iyo ka warqabka xaaladaha waalidkooda macaadallaah iyada oo ay jiraan in dadka qaar uu wejigooda xumaado ama madoobaado markii loo dhalo gabar allow noogu deeq gabdha wanaagsan oo nolosha dhibkeeda dheef noogu beddelo allaahumma aamiin